السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan salaamayaa dhammaan shacbiga reer Somaliland. waxaan u mahadnaqayaa saxaafadda. waxaan maanta isugu yeeray inaan laba arrimood wax ka yiraahdo. arrinta koowaad waxa weeye guddiga doorashooyinka qaranka iyo doorashooyinka aynu filayno. inta waxa xaaladda guud ee dalka Jamhuuriyadda Somaliland hase yeeshee intaan labada mawduuc u gelin waxaan jecelahay erayo iba fura ama kaftan ama xasuus noqon kara inaan ka horeysiiyo waxaa ka warqabnay in xilligii aynu campaignka ku jiray madaxweyne Muuse iyo kulmiye ay aad ugu ololeeyeen ciro iyo xisbiga wadani dalka laguma aamini karo hase yeeshee arrintaasi gabay bay ahayd laakiin anigu maanta gabayi maayo gabaygana inta badan waxaa lala sugaa xilli ku munaasib ah hase yeeshee gefkaa ka dhacay kulmiye iyo madaxweynaha maanta jooga anigu raaci maayo waddadii ay raaceen waxaan leeyahay aan odhanayaa Muuse Biixi iyo kulmiye dalka waynu ku aaminay mana odhanayo Muuse Biixi dalka lagu aamini maayo laguma aamini karo waxa laga qabto laakiin waxa leeyahay waynu ku aaminay kulmiyena waynu ku aaminay waxaan leeyahay kulmiye iyo Muuse dalku wuxuu ku jiraa marxalad adag oo dhaqaale darro ah maamul habacsanaan ah qaybsanaan ummadda ah mas'uuliyaddeeduna arrimahaas oo dhamme maanta waxay saaran yihiin hoggaanka dalka oo xisbiga kulmiye xukuumadda kulmiye iyo madaxweyne Muuse jidka uu dalku maanta ku socdaana haddii aan laga leexin waa jid keeni kara in qarankani dumo erayada waxaan ku kabayaa erayo fariin ah oo aan u dirayo taageerayaasha xisbiga wadani meel kasta joogaan erayadaasi waxa weeye hunguriga xisbiga wadani ee kursiga madaxweynaha kii hore waa ka weyn yahay rajada guushuna way ka weyn tahay tii hore hawlaha in hor yaalaana way ka weyn yihiin feejignaantana ilaga doonayaana way ka weyn yihiin waxaan ku soo gunaanadayaa hordhacaas erayo xikmada oo laga dhaxlay madaxweyne Obama xilligii uu ku jiray xilligii doorashadii ugu dambeysay madaxtooyada Mareykanka isagoo markaa la hadlayay madaxweynaha Mareykanka ee hadda jooga Donald Trump waxaanu ku yiri af Ingiriisi if you have to win campaign by dividing the people you are not going to be able to govern them and you will not be able to unite them later turjumada waxaan u deenayaa saxaafadda iyo shacbiga aad baa mahadsantihiin komishanka doorashooyinka iyo qaranka iyo arrimaha doorashada xisbiga wadani isagoo sababeeyay wuxuu kalsoonidii kala noqday guddiga doorashooyinka qaranka taariikhdu markay ahayd 22 March 22 bishii saddexaad 2018 isagoo u maray dariiqa sharcigu tilmaamay waxa la yaab leh inaan komishanku kalsooni kala noqoshada xisbiga wadani waxba ka soo qaadin hawshiina si caadi ah isaga sii wato ilaa hadda xisbigu wuxuu cadaynayaa inaanu waxba ka ogeyn qaybna aanu ka ahayn wixii uu sameeyay komishanku kadib 22 bisha saddexaad 2018 si wadashada hawsha komishanku iyadoo uu ka maqan yahay xisbigii ugu weynaa ee mucaaridka ahaa waa gef waana meelka dhac waana sharci darro waxaan uga digaynaa guddiga doorashooyinka qaranka
sii wadashada hawshaasi haddii ay tahay xeer la sameeyo hadday tahay magacaabis xubno muhiim ah ama ay tahay shaqaale halbowle ah war-saxaafadeedkii ka soo baxay madaxtooyada jamhuuriyadda somalilan waxaa lagu xusay dhowaan in komishinku soo diyaariyey xeer axsaabtuna ay qayb ka ahaayeen waxaan shacbiga somalilan xukuumadda golaha wakiilada golaha guurtida iyo daneeyayaasha doorashooyinka somalilan ee caalamiga ahba u caddaynaynaa inaan xisbiga waddani qayb ka ahayn xeerkan iyo wax kasta oo komishinku uu sameeyey kadib xisbigu kalsoonida markuu kala noqday komishanka bishii 3aad 2018 xisbiga waddani wuxuu bishii 3aad 2018 madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan u jeediyey in doorashooyinku inoogu qabsoomaan wakhtigooda isla markaana la bedelo komishanka hadda jooga lana magacaabo komishan cusub oo dheeli tiran waxaanu u aragnaa sii joogista komishankan in macnaheedu yahay doorasho ma qabsoomayso mas-uuliyaddeedana waxaa qaadaya madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan marar badan baa muuse biixi iyo kulmiye ka hor intaanu kursiga fuulin ku eedeeyeen guddoomiyihii hore ee golaha wakiilada oo wakhtiga ahaa aniga inuu hor taagan yahay in la sameeyo xeerka doorashada golaha wakiilada waxaa maanta isweydiintu tahay maanta ayaa hor taagan waxaynu ognahay in maanta muuse biixi uu yahay madaxweyne yahayna guddoomiyaha xisbiga kulmiye waxaynu ognahay in guddoomiyaha golaha wakiilada baashi maxamed faarax uu yahay kulmiye waxaynu ognahay guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo labaad ee golaha wakiiladu inay yihiin kulmiye waxaynu ognahay in ka badan 55 xildhibaan inay yihiin kulmiye maanta haddii ay doorashadu dib u dhacdo haddii kootada haweenka iyo dadka laga badan yahay la ansixin waayo haddii saami qaybsiga go'aan laga gaari waayo lana tixgelin waayo tabashada beelaha darafyada waxaa mas-uuliyaddeeda iska leh oo aan lala wadaagaynin madaxweyne muuse biixi iyo xisbiga talada haya ee kulmiye arrinta saami qaybsiga xilligii madaxweyne siilaanyo waxaynu ogeyn in doorashadii madaxtooyada iyo tii golaha wakiilada in la kala reebo lagu sababeeyey in madaxweyne siilaanyo oo guddi heer qaran oo ka soo tala bixisa go'aana ka gaadha arrinta saami qaybsiga la sameeyo hase yeeshee markii arrintaa lagu guulaystay in la kala furo labada doorasho halkeedii lagama soo qaadin arrintii walaalayaal maadaama aan muddo dheer ka ahaa oday golaha wakiilada waxaan qabaa in goluhu wakiiladu aanu xel u heli karin arrinta saami qaybsiga kuraasta golaha wakiilada arrintani ka maarmi mayso haddaynu doonayno inaan doorashadu dib u dhicin go'aan qaadasho adag oo ka timaada madaxweynaha si doorashooyinku inoogu qabsoomaan madaxweynaha waxaanu u gudbinnay asbaabihii komishinka aanu kalsoonida ugala noqonnay ee sharci iyo maamul waxaana kuwaasii kaabay barnaamijkii baadigoob oo ahaa barnaamij baadhiseed oo madax bannaan barnaamijkan isna waxa uu daboolka ka qaaday caddaymo iyo dhacdooyin badan oo kaabay kuwii hore ee xisbiga waddani shacbiga ugu soo bandhigay kuwaas oo dhammaantood ka marag furaya inaan komishankan lagu kalsoonaan karin dhexdhexaadnimadiisa inaan garsoor aan kalsooni haysanina aanu garniqi karin waa heshiis caalami ah komishanka kalsoonidii waan kala noqonnay hawshiisiina si caadiyu isaga wataa madaxweynaha qoraal baanu u qoray in la bedelo komishanka wax garawshiyaahi kama iman waxaa erge noogu yimi akaademiyadda nabadda iyo horumarka somalilan oo noo sheegay inay ka ergeeyeen in madaxweynuhu ogol yahay in laga wada hadlo beddelka komishanka iyo arrimaha doorashada hase yeeshee arrintaasina midho may dhalin jidka keliya ee xisbi ahaan
noo hadhay waa inaan shacbiga la hadalno gaar ahaan taageerayaasha xisbiga waddani kana tashanno tallaabada aan qaadayno hase yeeshee ka hor intaanaan shacbiga la hadal ama taageerayaasha la hadal waxaannu rabnaa inaannu bixinno fursad kale si xal looga gaadho beddelka komishinka doorashooyinna dalka uga qabsoomaan. waxaan diyaar u ahay anigoo ah guddoomiyaha xisbiga waddani inaannu ka wada hadallo madaxweyne muuse sidii loo bedeli lahaa komishanka. walaalayaal, xisbiga waddani waxa uu baadigoob ugu jiraa cadaalad, daahfurnaan iyo wax wada lahaansho. xisbiga waddani hay-ad ama shakhsiyaad gaar ah oo uu cadaawad u hayaa ma jirto. waxa uu doonayaa in komishinku ku shaqeeyo dhexdhexaadnimo, daahfurnaan iyo xubno isu dheeli tiran si daneeyayaasha caalamiga ay xoogaal ugu noqdaan daahfurnaanta hannaankeenna doorasho. xisbiga waddani waxa uu si buuxda u taageeray ka qaybgalka doorashooyinka ee goobjoogayaasha caalamiga ah international observers. waxaanse ku talinaynaa in qaabka xulashada goobjoogayaasha, xogta iyo maamulkooduba ay daahfurnaato. tirada goobjoogayaasha caalamiga ee yimaada way yar tahay. doorashadii dhoweyd waxaa inoo yimi 60 goobjooge oo caalami ah. taasi waxay sababtay inaanay in badan xogogaal u noqon karin dhacdooyinka iyo gifafka badan ee dhacay. 27 goobood bay joogeen goobjoogayaashu markii la furayey. 30 goobood oo keliya ayay joogeen markii la xidhayey. 12 goobood oo keliya ayay joogeen markii la tirinayey siday warbixintooda ku sheegeen, iyadoo ay jireen 1642 goobood. halkaa idinkaa qiimayn doona haddii alla ka dhigo. xaaladda guud ee somalilan. walaalayaal, maanta dalka waxaa ku habsaday maamul xumo baahsan. xukuumadda hadda jirtaana waxay albaabada u laabtay dhammaan hannaankii somalilan ku socotay ee ahayd hiigsiga dowladnimo qaangaadh ah iyo helidda ixtiraaf caalami ah. waxaa maanta meeshii ugu hoosaysay maraya siyaasadda arrimaha dibadda somalilan oo go'doon siyaasi ah sii gelaya maalinba maalinta ka dambaysa. waxaa soo baxaya sawirro muujinaya in somalilan meeqaamkeedu hoos u sii socdo. qalabka barbaahinta maalmahan ugu dambeeyey waxaynu kala soconnay dhacdooyinku uguba somalilan. waxaa ka mid ahaa in wafdi reer somalilandihi booqasho ku tegay puntland iyadoo xukuumadduna ka warqabtay tegiddooda siday ku sheegtay war-saxaafadeedkeeda ka soo baxay madaxtooyada, kuna tilmaantay dad isxilqaamay. waxaa sidoo kale barasalis ka socday shir caalami ah oo lagaga hadlayo arrimaha soomaaliya oo ay xukuumaddeennu sheegtay inaanay ka qayb gelayn, cid ay u wakiilatayna aanay jirin. hase yeeshee ay ka qayb galeen sidaa ka warqabtaan guddoomiyaha xisbiga ucid iyo madaxweynaha khaatamo. waxaa si baahsan ula soconnay arrimaha maamulka hawada soomaaliya inay gacanta somalilan ka baxeen. waxaa la sheegayaa in saraakiil waaxda socdaalka soomaaliya soo magacowday ay hargeysa joogaan. arrimahaasi waxay muujinayaan dareen ah in xukuumaddu raalli ka tahay in somalilan la gaadhsiiyo meeqaa maamul goboleed. kulmiyow, qarannimadii miyaad ka noqoteen? xukuumadda golayaasha iyo shacbiga ha u soo bandhigto xukuumaddu haddii isbeddel ku yimi siyaasadda arrimaha dibadda iyo ta gudahaba ee somalilan. arrimahaas kor ku xusani waxay rajabeel ka dhigayaan shacbigii samirka badnaa ee 27 sano ka dhur sugayey dal la aqoonsan yahay oo caalamka ka mid noqda. go'doonkaas iyo rajabeelnimadaas mas-uuliyaddeeda waxaa qaadaya xukuumadda kulmiye ee haatan talada haysa taariikhda
ayaanay ku geli doontaa arrimaha gudaha xisbiga waddani arrinta ceelaf weyn xisbiga waddani waxa uu bogaadin mahadnaq u diraya dhammaan ergooyinka ka qayb qaadanaya nabadaynta ceelaf weyn oo ah dhacdadaasi musiibo qaran waxaan ilaahay uga baryaynaa in ergadu ku guulaystaan soo afjaridda colaadaas labada beelood ee dirirayana waxaan ugu baaqaynaa inay aqbalaan go'aanka ergada nabadda xukuumadda Soomaaliland waxaan ugu baaqaynaa inay si degdeg ah u fuliso go'aanka ergada si aan arrintaasi u soo noqon mar dambe arrinta tukaraq iyadoo aan lagu xadgudbayn sharafta iyo qarannimada Soomaaliland waxaan ugu baaqaynaa dhinacyada Soomaaliland iyo Puntland in xaalad kasta oo nabad lagu gaari karo aan dagaal lagu bedelin shacbigu labada dhinac waxay rabaan nabad nolol iyo horumar waxaan soo jeedinaynaa si colaadda loo soo afjaro in fursad iyo jawi wada hadal la abuuro lana suurto geliyo in dib loo bilaabo wada hadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland lagana wada hadlo dabinta colaadaha heshiiska khaatimo iyo Soomaaliland iyadoo la tixgelinayo duruufaha siyaasadeed iyo amni ee xilligan ku jirno waxaanu u aragnaa inay aad muhiim ugu tahay qarannimada iyo midnimada Soomaalilandba dhammaystirka heshiiska Soomaaliland iyo khaatimo waxaan xukuumadda u soo jeedinaynaa inay qabiyo tirto heshiiskaas wixii ka qabiya wabillahi tawfiiq السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدبا ما تنتهين صحافته.